xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ayaa cambaareeyay xarig loo geystay 4 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley oo maalintii labaad xiran sida warkan inooga qaadayo wariyaheena Maxamed Wadani maalmihii u dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee magaalada Gabiley ayaa cirkiis ku sii shareereysay kadib markii uu muran soo kala dhex galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley iyo maayarka degmadaasi shalay ayaa waxa xabsiga loo taxaabay 4 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka kana tirsan tirada xildhibaanada ah ee maayarka Gabiley ka gudbiyay mooshinka xilka qaadista ah wararka kale ee soo gaaray ayaa waxa ka mid ah in goor dhaweed xabsiga loo taxaabay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Faarax iyo xildhibaan Mustafa Sayd Abakar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka tirada xildhibaanada ah ee hadda xiran ayaa ah 6 xildhibaan laamaha ammaanka gobolka Gabiley ayaan wali ka hadal xariga xildhibaanadan waraysi uu TV-ga SBC siiyay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Faarax xarigiisa ka hor ayaa waxa uu dhacay sidan waxyaabihii shalay ka dhacay gobolka Gabiley anagu waxaan nahay xildhibaanadii xisbiga kulmiye ka soo baxay xildhibaanada la xiray waxaan lagu xiray sifo sharciga baalmarsan ayaa horta lagu xiray iyadoon loo soo marin dariiqii lagu xiri lahaa xildhibaanka taa waxaanu aragnaa qalad waxaan halkan shacabka reer Gabiley leenahay wax buuqa lama sameynayo wax rabshada lama sameynayo dadka waxaan leenahay wax alla wax buuq la sameyn kara ma jirto anagu sharci baanu ku taaganahay anagu sharciga aan ku taaganahay baan dawladda dhexe ka codsanayna inayna soo dhex gasho oo eegto sharciga yagan aanu wadnayno xilka kaga qaadana maayarka iyo maayarka xigeenka loo sababeeyay inaan anagu carqalad kala wadno ma wadno carqalad kale anagu sharciga yagaasaan ku taagnaanayna dhinacna uga weecan mayno xildhibaanada la xiray sharcigay ku taageen wixii qaldan sharciga hala mariyaan lana laakiin iyadoo aan mooshinka aanu keenay baanu haysanaa anagu sababto inay tahay in na lagu xirxiray oo xildhibaanada kale lagu xirxiray mooshinka laftirkiisa gabagaba ayuu ku dhawaa inaanu hawsha dhameystirno ayaanu xildhibaan ahaan marka aanu isku ogeyn wixiina wata 4 xildhibaan la xiray marka waxaan oran lahaa dawladda na soo dhex galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland nala eega wixii jira mooshinada iyo waxaanu keenay dhibtu ka timiday in nala eego oo sharcigaas dhinacna ugama baarano wax buuqana haba yaraatay ma sameynano xildhibaan sababaha ugu waaweyn maayarka xilka uga qaadaysan maxay tahay anagu maayarka waanu soo eedaynay qodobo sharci iyo xeer 23 ku yaalna wuu jabiyay maadaama uu qodobada xeer 23 17 qodob buu jabiyay 17 ka qodob uu jabiyay baan xilka horta kaga qaadanaa qodobada ugu waaweyn jabiyay waxa ka mid ah miisaaniyadii goluhu uu ansixiyay ku dhaqan la'aanteeda ayaa ka mid ah xildhibaan shalay la hadlay BBC waxa uu sheegay inay ku bedelayaan maayarka awaamiirta ay xildhibaanadu soo jeediyeen una qaadanay maayarku muna xaq u lahayn inuu maadaama idinku doorateen inuu ku shaqeeyo awaamiirta isaga ka soo go'ay may xaq uma laha go'aanka goluhu soo saaro awaamiirta goluhu soo jeediyaan amba waxa qorshaha ay dhigaan golaha deegaanka xildhibaanadu ayaa ah inuu ku shaqeeyo maayarku hadduu baal maro waa waxyaabaha qaladka ah ee keenaya xilka qaadista xadhigan xildhibaanada shalay la xiray maxaa la idinku soo taa war kama hayno hay'adda dawliga u taala laakiin anagu waxaan isleenahay mooshinka yagaas ayaa lagu xiray si kastaba ahaatee lama oga xaqiiqda dhabta ah ee ka dambaysa xadhiga xildhibaanadan wixii war ee ka soo kordha xadhiga xildhibaanadan waxaad ka daawan doontaan wararkayga soo socda waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadani warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.